xildhibaan cibaade maax cilmi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada Gabiley ahna sidoo kale xubin miisaan culus ku leh ururka Al-Khayriya ee fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa maanta deeq buugaaga gaadhsiiyay dugsiyada waxbarashada ee ku yaala deegaanada Kalabeyd Satiile Ilmadeedo Ilinta Yar Guriga Cad iyo gobolka Daarima deegaanadan oo dhan ayaa ka mid ah gobolka Gabiley xildhibaan cibaade maax cilmi qaybinta buugaagtan waxaa sidoo kale ku wehelinayay isku duwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dalxiiska gobolka Gabiley Saciid Salmaan Muumin agaasimaha aqalka martida ee gobolka Gabiley deeqaw Muuse iyo sidoo kale xubin miisaan ku leh ururka Al-Khayriya Shukri maax cilmi deeqdan ayaa ahayd buugaagta exercise book kuwaas oo lagu talagalay in ardaydu ay casharada ku qortaan deeqdan buugaagta ayaa waxa soo diray ururka Al-Khayriya oo urur ka shaqeeya horumarinta bulshada gobolka Gabiley sidoo kale kubcinta iyo aqoonta isagoo ururkan fadhigiisu yahay dalka Ingiriisku wuxuuna ururkan Al-Khayriya inta badan u diiradda saaray in la gacan qabto ardayda danyarta ah ku nool deegaanada ka fog magaalooyinka si loo helo jiil leh aqoon karti iyo hufnaan waxaana howlgalkan buugaagta lagu qaybinayay kaalin firfircoon ka ciyaartay xildhibaan cibaade maax cilmi oo ka mid ah xildhibaanada ugu firfircoon golaha deegaanka Gabiley inta badan ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo horumarinta dadka saboolka ah xildhibaan cibaade ayaa si toos ah buugaagta ugu wareejiyay maamulada dugsiyada waxbarashada ee deegaanada Kalabeyd Satiile Ilmadeedo Ilinta Yar Guriga Cad iyo gobolka Daarima kuwaas oo ay ka muuqatay farxad reyn maadaama la soo gaarsiiyay agab ay baahi weyn u qabeen macallimiinta dugsiyada ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ururka Al-Khayriya iyo tiimkii waday deeqda haddaba xildhibaan cibaade maax cilmi ayaa dugsi kasta u qaybisay buugaagtii loogu talagalay oo inuu wadno buugaag exercise book oo kulay ardaydu baahi weyn u qabto waxay la joogaan maamulka dugsiga xildhibaan cibaade maax cilmi deeqaw Muuse iyo Shukri maax oo kamid ah haweenka hadi jeer ixtiraama Al-Khayriya oo lagu xasuusto hadi jeer in waxbarashada ka shaqeeyaan kulli ardayda halkan markay gaaraan heer jaamacadeed waxay arki doonaan deerka weyn oo lagu xasuusan doono Al-Khayriya iyo hoolka weyn ee jaamacadda oo ay qayb libaax ka geysteen hadda waxay arkeen in exercise book ay tuulooyinkii isku mataqaanaa degmooyinka u baahan yihiin kuwiina way noo keeneen waxaan leenahay meesha ilaahay ay ka soo saareen ilaahay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro khayrna ugu bedelo kulli dugsiga waynu arkaynaayo wax ka dhimin deerkii wixii kulli baahi jirta oo wax baahina wada saaran dhamaanteen maadaama aan nahay bulshada meesha ku noolay waxaan leeyahay hadee Roma maalin lagu martisane maalinba meel baynu gaari doonaayo halkan waxaynu arki doonaa isbedesho kulli maamulaha aad baan soo ugu mahad celinaa soo soo dhaweeyay soo qaabilay kulli baahida ardayda dabooli mayso laakiin se qayb kamid ah way dabooli doontaa bidmillaah kariim waxaan maanta joogaa dugsigii hoose dhexe ee Kalabeyd waxaana lagu talagalnay buugaagta oo laga keenay dibadda oo ururka Al-Khayriya soo direen ayaanu ugu soo deeqnay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inkastoo ay ku filneen ardaydu ka fara badan tahay baahiyo badanina ay ka muuqdaan dugsigii waxaanu leenahay bal baahiyahoogana maamulaha idin sheegi buugaagtaasina inay naga gudoomaan dugsiga hoose dhexe maamulahooga iyo macallimiintoodiba intii ay gaadha caruurtana aad gaarsiisaan si qurux badan aad ugu qaybisaan waxaanan ilaahay ka rajaynayaa wixii kale ay yimaadana inaan sidaas oo kale idinku keeni ma ilowsanin Kalabeyd laakiin marba waxbaa noo yimaada wixii noo yimaada waxaan jecelahay waliba siba aniga inaan waa magaaladeydii kala qayb galo maantana inta ay soo gaadhaan siri bal tuuladaadii gee waxaanan ilaahay ka rajaynayaa inay wax fiican u noqoto ururkii Al-Khayriyana maanta baahiyada iskuuladii hoose ee dhexe ayna eegaan waxyaabahooga maamulahooga sheegi doono salaam bismillaahir rahmaanir rahiim buugtaadna soo gaarsiiseen exercise-ka oo kulli tirada ardaydu kulli ka badan tahay wallahi Al-Khayriya soo dirtay iyo intii la kale noo soo gudbisay aad baan idinku mahad celinaynaa dugsiga baahihiisu way badan yihiin wadarkiisa deerkii oo doon noogu oodan nama soo gaaraan oo ma aragno wax rajistara oo kuwii ardayda attendance-kii lagu xadirinayaa waxii sabrada lagu masaaxayay waxba ma aragno annaga jeebkayga haysta maalinta badan rajada soo iibsana dugsigu iska dayaan sida kale oo wuxuu u baahan lagu sameeyo rehabilitation ama dayactir marka baahiya dugsigu iska badan yihiin marka aad baan idigu mahadcelinaynaa aad baan idiga mahad celinaynaa qolada Al-Khayriya iyo intiina soo gaarsiin oo soo gudbisay aad iyo aad baan idiga mahadcelinaynaa waxaan ku joognay iskuulkii hoose ee dhexe Satiile oo aan u keenay iyadoo exercise
oo ay walaalaheenna jahliyadda ingiriiska joogtay alkhayriya usoo dirtay annaguna aanu usoo qaadnay bugaagtaasi oo isugu jirta kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn waxaanu jecelnahay bugaagta inaad ardayda gaarsiisaan wixii baahiyahana waanu wada arkaynaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inay idinkuna ka faa'iidaystaan dumarka walaalaheena idiin soo dirayna daadu mahadnaqdaan wixii baahiye marba yimaadana sidaan baanu idinla soo socodsiin waxaanu jecelnahay inay naga gudubtaan. Asalaamu calaykum. aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa caawiyaha aad noo keenteen iyadoo baahi weyn ka jirto iskuulka iyo iskuullada kulley miyiga waxa weeye waxa farxad noo anaga markii ugu horreysay ee ay dad u dhashay waddanka amba jaaliyadda aynu soo xasuustaan runtii aad baan ugu mahadnaqanaa insha allah waanu ilaalin doonaa ardaydoona waxa laga yaabaa way ku farxi doonaan waxbarashadoodana inay kor ka qaadi doontaa insha allah marka kulley deegaanada miyiga horta magaalada iyo miyiga isku mid maaha dadka miyiga waxaad moodaa in la iska ilaawayba oo kulley baahiyo badan baa jiro oo abaaraha ka dhaca oo deeta xitaa waa dad iska danyara oo say wax ku helaanba buugaagta iyo waxaas iska ciriiri waxaan rajaynaynaa inay fursad noo noqoto ugu horeysa tahay insha allahu ay noo soo wadi doonaan dadka aad baan ugu farxsannahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqay alkhayriya ee jaaliyadda somaliland ee gabiley aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa waxaan maanta joognaa dugsigii hoose dhexe ilmadado dugsigaa hoose ilmadada waxaanu u keenay bugaag exercise books bugaagta wax lagu qorto oo ay soo direen walaalaheena UK ee jahliyadda alkhayriya kuwaasoo doonay inay uga faa'iideeyaan walaalahooga caruurta yaryar ee ku nool deegaanadaas waxaananu maamulihii maanta ku wareejinaynaa bugaagta waxaananu ilaahay ka rajaynaynaa inuu si fiican uga faa'iideeyo caruurtaas iyo wixii baahiyaa ee dugsigu leeyahayna maanta waana ka soo eegnay wixii looga qaban karo waa looga qaban. Wasalaamu calaykum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa horta dadkana soo booqday ee xildhibaanada ay wakiilka ka tahay cibaado maax ee noo keenay buugta jaaliyadda alkhayriya ay noo keeneen waad mahadsantihiin dhammaantiin ilaahayna ha idinka abaalmariyo buugta aad noo keenteen iyo waxtarka aad u yeelateen iskuulka intaa ka bacdi ardayda waanu uga faa'iideyn doonaa waanu u baahannahay wixii kolba aad noo heshaan jaaliyaduna ha noo soo dirto kolba waxay noo hesho xildhibaanada iyo gobolkuna ha noo soo diro. Assalaamu calaykum waraxmatullahi raxiim. waxaanu halkan maanta ku bixinaynaa iskuulka ilinta taagan ayaanu bugaag exercise buu u keenay oo ururka alkhayri jahliyadda alkhayriya ee UK ay u soo dirtay walaalahooga caruurta yaryar oo soo xasuusteen jahliyadda alkhayriya bugaagtiina waan keenay waana kuwa aad arkaysaan waxaanan ilaahay ugu mahadnaqayaa maanta oonu maamulihii kula kulannay meel iskuulka u dhow oo aanu ku wareejinay waxaananu leenahay ardaydaasi waa inaad sideedii u gaadhsiisaan maadaama waqtigii la rawaxay aanu soo gaadhnay waxaananu jecelnahay inay naga baahiyahoogana soo sheegtaan annakuna wixii aanu u qaban karno aanu u qabanno. Wasalaamu calaykum. mahad celinaya xildhibaanka cibaado maax iyo qurbashoogta noo keentay buwaagta ee ardayda ku soo caawisay waxaan uga mahadnaqanaa inay noo soo kordhiyeen kolba wixii aan u baahannahay oo hawlahayaga nala socdaan aad baynu u mahadsan yihiin xildhibaanka iyo inta waday buwaagta ee ku soo caawisay ardaydooda joogta miyiga. ilaahay baa mahadle maanta waxaan joognaa gurigii caddaa annagoo soo marnay dhowr goobood oo iskuulaa oonu u qaybinay bugaagta wax lagu qortay caruurta wax ku qoranayso kuwaasoo ay soo dhiibeen walaalaheena UK ee jahliyadda alkhayriya oo ilaahay mahadii maanta ina soo gaarsiiyey ilaa imikana waxay joogo dhowr bilood iyo 2 bilood intaana waan soo araaranaya inaan keenayo sidaan u qaybinayo walaalaheena inoo keenayna waa inaan u mahadnaqo baahiyaha iskuulkuna wuu fara badan yahay oo baahiyo badan baa ka muuqda marka waxaan leeyahay iskuulka maamulihiisa iyo macallimiintiiba maanta iyo ku joogo iyo odayaal dhaqameedkii
guriga cadiba ardaydana si wanaagsan ha loo gaarsiiyo kana faa'iideysta wixii baahiya idinla soo gudboonaadana waanu idinku garab taaganahay waxaana ilaahay ka rajaynayaa inuu wixii aniga farahayga soo galaa aan sidaa idinku keeno taasaan isleeyahay wax alla waxaan idinka hagranayaana ma jiro wixii sidaa ii soo galaa anigu waxba ma hayee maalinta ii timaada waxaygii waan idii keeni oo idinka qolada ugu horeysa anigu halkii layga soo durto waan ogahay haddana de maanta gobolka Gabiley oo dhan baan wada matalaa haddana siba reerkeennii baan matalaa marka waxa weeyaan ina sida quruxda badan leh wax idinku helo ana idinku keeno waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay idinku anfaco carruurtana tacliinta ku barakuna wanaajiya sida ay walaaliheen sheegan iyo odayaasha beesho marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa ururka soo diray buugaagtani alkhayriya ilaahay ha ka jisaaysi mar labaad waxaan ugu mahadnaqaynaa dadka loo soo gaarsiiyay cibaado maax iyo shaqaalaha kale ee la socda hablaha kale inkastoo aan magacooda garanaynin ee ay isku midka u yihiin waan u hambalyeynaa insha Allah marka xildhibaanada aad baan ugu mahadnaqaynaa wixii soo galay gacanteeda inaanay naga hagranaynin baan filaynaa oo waliba dadaalka ay sii kordhiso insha Allah ururkana waan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay tafaa'ulka soo dhawaada ayaan leenahay wixii baahiya ee aad noo qaban kartaan ilaahay baa baahiyaha dhameystireen noo qabtaban leenahay noogu dadaal talabaad waxa weeye maanta buugaagta la noo keenay iyo jaaliyadan alkhayriya noo keentayba ilaahay baa mahadle iyaguna waa mudan yihiin ilaahay ka jisaaysiiyo walaashii cibaado maaxo iyaduna maamulaha noo sii daahayna soo gaarsiisayna boqolkiiba boqol baan ugu mahadnaqanaa ilaahay ka jisaaysiiyo iyo intiina kale la socotay waad mahadsantihiin kuwa kale noo soo dadaalayna idinkuna waad mahadsantihiin taas iyadu waa sidaa si kastaba aatee dadka degan deegaanada ayaa si weyn ugu baahan taakulayn dhanka waxbarashada sida kuraasta iyo agabka wax lagu barto iyadoo deeqdan la gaadhsiiyay wax badan ka bedeli karto baahiyaha loo qabo waxbarashada deegaanada miyiga ah oo aanay dawladdu culays badan iska saarin inta badan waa Jacfar Awil Hareeri shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley